بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jirnaa youtube-kii sheekh xasan ibraahim ciise. waxaan kaga dhex mushaaxaynaa qeybihii riyooyinka. xalaqadii 92 ayaanu ka soo baxnay, tii 93aad ayaanna gelaynaa. isla tirsigeennii baan ku soconaynaa, waa riyadii 13aad. alxamdu lilaahi fiican sheekh, waxaan rabaa inaad ii fasirto riyooyin khayr allah ku siiya, jannatulfirdowsa allah kugu bishaareeyo in shaa allah, allahuma aamiin. hooyaday ayaa waxay ku riyootay anigoo wiil cad ama aad u cad dhalay, anigana aan gabar ayaan ahay. wiilka wuxuu igu dhalay wiil oo mar hore la isiiyey ayaa iga dhalay inay taaban filaya, haddaysan ahayna raalli ka noqo. ousan i guursanin sheekh ii fasir in shaa allahu tacaala. inuusan kuu fiicnayn ayay tilmaamaysaa ninka guurkiisa. xaqiiqda ilaahay baa garan subxaana wa tacaala, balse in haddii ay weli hadal jiro aad si fiican isaga fiiriso, iskagana ilaaliso. haddii la kala tegayna ay wacan tahay kala tegitaanka in sha allahu tacaala. rida 14aad. assalaamu calaykum sheekh, allah ku xafido, allahuma aamiin. sheekh, waxaan ku weydiinayaa, mararka qaar aniga oo soo jeeda baan waxaan dareemaa inuu zaa'id murug i hayso, iska ooynaayo. waxaan arkayaa anoo walaashay canug dhashay oo ka saqiiray, markaasaan abbaayo uur bay lahayd markaas. kadibna maalmo kadib abbaayo way dhashay, canugani waa ka saqiiray. sheekh, mar kasto saas baan waxaan u dareemaa, cidna uma sheegi karo ilaa uu ka dhaco arrinta, ilaa wixii ka dhacaan. midda labaad sheekh, waxaan ku riyooday mar badan anoo dabaq dheer la iga soo tuurayo. gabar ayaan ahay sheekh, cafwan waan kugu dheereeyey, ilaahay ha ku xafido. cafwan sheekh, taas ayay ku soo gebagabaysay. waxaan filayaa riyadan in lasoo fasiray. haddiise dib aan ugu noqono, qofka isagoo soo jeeda oo aan hurdaynin riyo lama dhaho, waa khiyaali. cabsida iyo walbahaarka iyo kurbadaana waxaa aad iyo aad u wanaagsan qofka inuu qur'aan isi saaro, qur'aan inuu markaa isku akhriyo, adkaartana uu badiyo. alaa bidikri illaahe tadma'inu alquluub. qalbiga idan waa degayaa, waana xasilayaa in sha allahu tacaala. wax dhibaatana arki maysid ilaahay idinkii. middan labaadse ay ku riyootay mar badan ayadoo dabaq laga soo tuuraayo, ayaduna iska imtixaanaad. qole waxay ku fasiraan qofka inuu ka guurayo marxalad, qofka haddii inta lasoo qabto meel sare laga soo tuuro, hoos uu ku soo dhaco, darajadiisa qofay hoos noqonaysa waaye, dhaqaalihiisuu hoos u dhacayo. maxabada haddii tahay zawj la qabo, zawjad, maxabada ayada iyo ninkeeda isu qabaan oo hoos u dhacaysa, iyo wixii markaa la mid ah. idan daawadu waa inaad dikriga ilaahay badisaa in sha allahu tacaala. rida 15aad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheekh xasan, see tahay? allah ha kaa raali noqdee, allahuma aamiin. sheekh, waxaan ku riyooday bay tiri anigoo la socda wiil aan garanaynin. waxaan waddada ku aragnay hablo derbijiif ah oo ciyaal wata. kadibna waxaan soo galnay masjidka dhexdiisa, anigoo fadhiya sida qof atixiyaadsanaya oo kale ayaan haddana waxaan arkay islaan ka mid ah islaamaha tuugsada oo masjidka dhexdiisa canug ku nuujinaysa. markaan kadib ku hadlayso hadallo calaacal ah. wiilkiina derbiga masjidka ayaa inta uu fadhiistay maamada indhaha ka fiirsana. kadibna hurdadii ayaan ka soo kacay. ilaahay khayr ha ku siiyee, riyada iisoo fasir walaal. waa mashaakil bay tilmaamaysaa ayadana, mashaakil
ayay tilmaamaysaa taasoo sababaysa dariiq macnaha xagga waxaan sheegayaa radaaca marka la fiiriyo xagga nugmada oo qofka uu wax nuujinayo ama masaajidka dhexdiisa ay ku nuujinayso way wanaagsan tahay marka riyada laakiin riyadan kale ee dadka darbijiifkii waxyaabaha la midka ah waa dariiq kala duwan ayaa sababaysa macnaha sabab mashaakil oo dariiq kala duwan ah ayaa umaanaya khayrka ilaahay baa garanaya iyo sharta labadaba wixii sharna Allah kaa qabto khayr ahna ilaahay ha ku waafajiyo rida 16 assalaamu calaykum sheekh xasan marka hore ilaahay ha ku xafido allahumma aamiin adiga iyo familkaagaba allahumma aamiin aqoontaadana ilaahay ha ku barakeeyo allahumma aamiin intaas kadib sheekh waxaan rabaa inaad ii fasirto laba riyo oo aan ku riyooday midda koobaad waxaan ku riyooday aniga iyo sheekh aan qaraabanahay oo wadada socona waxaan aragnay ilmo yar oo guri yar oo jika ah xiraya markaas ayaa sheekii ila socday wuxuu ku dhahay ilmihii yaraa maxaad saan ugu xiraysaan qolkii yaraa ayaan galnay allahu akbar ayaan hal mar isla dhahnay aniga iyo asagiiba waxaan aragnay maamo iyo canug yar oo meel taagan markaan gudaha u sii galnayna waxaan aragnay nin meyd ah oo koofiye cad wata wejigiisana nuur ka muuqda dadka meesha la joogana wada qamiisyo cadcad ah ay wataan kuna dhawaaqayaan laa ilaaha ila allah oo qaylo aan ahayn kadib qolkii yaraa ayaan waxaan wuxuu isku bedelay beer weyn oo doog ah markaas ayaan aniga waxaan dhahay allahu akbar daartan weyn ayay haystaan qolkaas yarna waa ka deganaayeen haddana waxaan dhahay adduunyo waxba ma tarto maanta camalkiisa ayaa hor yaala ayaan soo kacay iyadoo intaas ay ii marayso ayaan hurdadii ka soo toosay ayay markaa tiri gabadha maxay noqon kartaa riyada labaadse waxay tahay waxaan ku riyooday aniga oo nin aan saaxiib nahay oo waddada socona ayaa waxaan tagnay guriga waxaa jooga maamo iyo 2 gabdhood wiilka ayaa wuxuu igu dhahay gabadhani ayaan ku siiyey maamada ayaa waxay leedahay maandow gabadhu waa diyaar ee adeerka markaad ka dhammaysan kartaa haa adeer waan ka dhammaysan karaa laakiin aniga iyo ayada aan wada hadalno marka hore waan soo kacay buu yidhi ayadoo intaasi ii maraysa wabillaahi tawfiiq riyadan qaybtan labaad waa isla arooska laftigiisuu noqon karaa ama waa adduunyo waa qofii adduunyo soo gelayso qaybtii koobaad waxay tilmaamaysaa caqabaad mixno qofkaas soo wajahaya intaa ka bacdina amni istiqraar waxaa kaloo lagu fasiraa riyadan qaybteeda hore ee wiilka uu ku riyooday camal saalix ah oo wanaagsan qof markaa qabanaya إن شاء الله تعالى رياضة 17 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حسن إبراهيم عيسى وان إذن سلام يا أذيك يا رمان أرضيدا واتكم هالسنتهين فسراد ريوينك والله ريو sheekh sidatan ayayna u dhacday kow sheekh 2 jeer waxaan ku riyooday anigoo jooga maalinta qiyaamo oo 2 jeer ayaan ku riyooday sheekh marna adduunka oo dhan baa gubanayay dadkuna way isku dhexyaaceen dad badan baa dadka xagga macnaha dab badan baa xagga dambe ka galay oo meel bay isugu geeyey habeen labaadkana waxaan ku riyooday isla qiyaamihii dadkuna waxay isku soo riyadaan dadkuna waxay isku soo ururinayaan xashrada sida quraanjo kadibna waxaan galnay saf sheekh intaa kadib riyadii
ayaan ka hurdadii ayaan ka kacay labada jeerba habeen ayay ahayd sheekh taas waxaa lagu tilmaamaa hidaayo iyo cilmi iyo qofkaasi inuu ilaahay subxaana wa tacaala qari wanaag gaarsiinay qiyaamaha lagu riyooday xidaar iyo digtooni waaye talabaad habaryartay baa igu riyootay anigoo oo timo qaawan oo qur'aan akhrinaya oy leedahay alla sidaan qur'aan alla siday qur'aanka u akhrinayso aniga ha i barto jazaaka allahu khayr sheekh waxaan rajaynayaa inaad fahantin qoraalkayga haddii wax qalada uu iga qoray mobilku icafiya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaa lagu fasiraa shifaa waxaa lagu fasiraa caafimaad waxaa lagu fasiraa arrimooyin badan oo noocaas ah qofka hadduu ku riyoodo asagoo qur'aan akhrinaya meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam